walaasha ismahaan waxay ku leedahay caafimaad fiican inaa heshid ama maqaarkaaga qurux badnaadaa kaliya ma aha inaa cunto fiican cuntid oona korkana wax marisid waxay ku leedahay arrimo fara badan ay ka qayb qaadanaya caafimaadka oo maantana bulshadeena ka daboolan tahay oona ah meesha aan ka dhibaatada naga haysata caafimaad darrada ayay ismahaan ku sidaa waxayna ku leedahay caafimaadkaaga waxaa ka qayb qaadanaya oo dhan ay maalin walbo ama maalinle ama maalinta ii noqotaba sida iigu noqotaba video ayaa idinkugu soo samaynayaa haddaa ratid inuu caafimaadkaaga fiicnaado ayay walaasha ismahaan ku sidaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada mar kale iyo channelkeeni ahaa tusintigaraadka iyo barashada xikmadda iyo walaashiini ismahaan khaliif cali mar kale idiin sidaa wax tayo leh oo qalbada u roon wax tayo leh oo qalbada u roon maasha allah soo dhawaada ayaa idin leeyahay halkan waxaadan idinkaga sidaa ma rabtaa caafimaadkaaga inuu fiicnaado maxaa ku diida caafimaadkaaga inuu fiicnaado waa dadaashay fitamiinaa soo gadatay waa cuntay waxaa soo gadatay wax kasto muxuu ahaa cunto fiicanaa cuntaa exercise tagtay hurdo waa istiri hurud laakiin waxyaabo fara badan oo maalintii caafimaadkaaga hoos u dhigaayo ayaa mar walba markay ii noqoto idiin soo gudbinaya maxaa yeelay bulshadeena soomaalida waxay u baahan tahay in la dhiso dadkan waxay u baahanaa in la dhiso marka aniga oo nafsadeydana dhisaayo idinkana la rabo inaan idinla wadaago waa iswada dhiseena kora u kaceena xasadka dib ayuu u harayaa marka xasadka asaa dib u haraayo xasadnimadana ma fiicno waxa wanaagsanne walaalaha waa lala wadaagaa anigana waa idinla wadaagaya waxa wanaagsan maanta marka waxaa ka mid ah aan idiin soo qaadanaya caafimaadka inuu dib u dhaco qofka muslimka caafimaadkiisa inuu dib u dhaco waxaa ka mid ah caafimaad fiican haddaa ratid ya waa rabtaa ilaan caafimaad fiican in millions oo lacaga lagu siiyo iyo inaa caafimaad fiican heshay dadka waxay ka jecel yihiin caafimaad fiican millionkaas hadhowta waxaa ku samaynaysa male haddaada caafimaad haysan sidaas awgeeda waxaan ku leeyahay walaashay gacalisooy iyo walaalkay gacaliyo waxaan idin leeyahay walaashiin ismahaan waxay idin leedahay ka fogow murugada sheekooyinka murugada badan maanta soomaalida caan ayay ku noqotayba waxayba sheekadeynaba noqotayba balaayo dhacday in laga sheekeeya maantana waxaa arkaysaa abaayo waxaa dhacay moogtahay hee wixii halkaas cidas xataa waxaa kaaga daran beenaa lagu daraya been caafimaadka suumarka kor ugu kaco waa inaa qofka kutirikuteenta iyo beenka iyo sheekooyinka murugada leh ka fogaatid maxaa yeelay qof binu-aadan ayaa tahay qofka binu-aadanka dadka binu-aadanka oo dhanne jirkaa ku dhaqaaqayo oo ku xanuunayo markaa xanuuno badan dhegaysatid looguguma talagalin inuu jirkaaga maanta dhan xanuunsado marka haddaa maanta dhan sheeko ka dhigatay sheekadaada noqoto maxaa dhacay ree hebelaa kan ku dhacay wiilkii kanaa ku dhacay gabadhii kanaa ku dhacay muxuu ahaa ninaa naa kufsaday kanaa kan ka dhacay balaayaa la sameeyey dadaa la faraxumeeyey way jirtaa hal sheega ma xumo laakiin adiga caafimaadkaaga maxaa ka dheefaysaa inaad dhegaysatid meeshaan newska aa laga soo qaataa newskaba ha laga carara la dhahay telejournaalihii newskii markaa aad dhegaysatid aad ku xanuunsanaysaaba dadka qaar qaadi karo kole aniga newska ma jecli inaad dhegaysto balaayo kasta oo dhacdana ma jecli inaad dhegaysto maxaa yeelay way i dhibtaa waxaana dareemayaa qof kasta oo binu-aadana inaad dhigayso maanta anaga bulshadeena waxay ku badan tahay sheekada kutirikutaantii wixii dhacay oo arin lagu daray tii waa la qabtay tukalaa lagu daray marka murugadaas farada badan caafimaadkaaga dhib ayuu gaarsiinaya waxaa laga yaabaa inuu dhiiggaaga dhan kor u kaco inaa xanaaqdid inaa carootid inaa hadallo laqwi ah ku hadashid maxaa yeelay laqwiyada aad ku hadlaysa waxaa ka mid ahoo kaleeto qiso ani hadda qisooyinka ma jecli inaan ka sheekeeyo kasoo qaadoo kale qiso ayaa lagaaga sheekeeyey waxaa leedahay ani haddaan ahaan lahaa saasaan samayn lahaa ani haddaan ahaan lahay ahaa kanaan ku samayn lahaa oo naagta doqonsana oo ninku doqonsana oo kan hadda waa laqwinaysaayo ogow wax aadan adiga kugu dhicin inaad kasii hadashid waa laqwi walaasha ismaan ku leedahay laqwi waa wax aan adig kugu dhicin ha ka hadlin ha galin afaarahaas wax lagu dirsado ma arrimaha shaqadaada ma aha shaqo kuma lid haddii kaleeto waa soo jiidanaysaa dhab way ku imaanay gurigaaga kugu soo gale qofkaas u dhaqmay ka xun ayaana u dhaqmaysaa
qofkaas wixii u sameeyey asaga ilaaha u qadaray asayna u taalaa cimrigaaga iyo noloshaada iyo waqtigaaga ha qasaarin ayay walaasha ismaan ku leedahay waqtiga wuu ordayaa aad iyo aad ayuu waqtigu u ordayaa waxaan ku leeyahay walaalahay qaaliyaalow qalbi uronayaalow caafimaad fiican haddaa rabtid waxaan ku dhahay ma rabtaa caafimaad fiican haa caafimaad fiican haddaa rabtid waa inaa waxa murugada leh iyo sheekada ku tiri kuteenta ah iyo daraamada ah inaa ka carartid markuu qof balaayo soo wado waxa ii sheegin waa mahadsan tahay abaayo qaaliyey qalbi urooney wararka xun wuu i dhibaa ha ii sheegin hooyaday qaaliye allaha u naxariisto jannadii firdowsa hooyaday macaan allaha geeyo ilaahay intay waalidiinteena iyo kuwa muslimiinta dhan idinka dhab waalidkiina allaha wada naxariisto hooyaday waxay dhihi jirtay war xunow laguwaa loogamana sheekeyn jirin hooyaday warka xun way necbaneen laakiin waxaan hadda maanta arkay dad fara badan oo ku raaxaysanaya warka xun intaas aad ku raaxaysatay ogow adna wuu ku imaanayaa sug gurigaagana ka sug waxay la mid tahay adiga oo ku farxaysid balaayo inay dhacday balaayada lagama sheekeeyo balaayada laguma raaxaysto waxaa lagu raaxaystaa wararka fiican dhegeyso qur-aanka tafsiirkiisa kutubta axaadiista ee guriga noo wada yaalaa dhegeyso wax ku taraayo wax oo cusub oo saynisyahanada soo baareen wax horumar leh wax tayo leh halagaa dhaxlo hooyo maxaa yeelay haddii kale ilmahaaga waxaas ayay kaa dhaxlayaan macno la-aanta ah okay maanta waxaa fiirsataa youtube waxaa fiirsataa maanta dhan wax kasto filinaa fiirsanay kanaa fiirsanay waxaa la rabaa inaad ka faa'iidaysid haddaadan ka faa'iiday waa inaad ka carartid gaar ahaan maanta caafimaad fiican wuxuu ku saabsanaa ka carar waxa murugada leh iyo ku tiri kuteenta caafimaadkaaga ayuu dib u dhigayaa iyo walaashaa ku leedahay meeshaan waxaa idinkaga soo saaraa wax kasta oo tayo leh markay ismahaan idin leedahay channelkan waxaa ugu magac daray toosinta garaadka iyo barashada xikmadda toosinta garaadka iyo barashada xikmadda garaadka oo la toosiyaa wax aad iyo aad u cajiib ah waa qofka muslimka mu'minka ee garaadkiisa waa inuu ka shaqeeyaa garaadkaaga markuu toosaa dadka kaa agdhow dadka ku dhow garaadka ayaa wada toosayo dad oo si fiican usoo baxay oo masha allah miro macaan ay meeshaas ka imaanay laakiin hadduu garaadka toosnaan waa dhibaato xikmadda marka barashada xikmadda toosinta garaadka barashada xikmadda waxaa waa iyadana waa wax cajiibe haddaa qur-aanka baratid iyo kitaabka qur-aanka sunnada si kasta u baratid wax ay ku taraysa male haddaadan xikmad lahayn maxaa yeelay waxaa noqonaysaa qof ku faantamo qof ku diglaya dadka qof iskula weyn qof anigaa sheekh eh dhaho marka waxaa lagaa rabaa dadka isla sin dadka ha iska saramarsiin hana ishoos marsiin la sinnow dadka kii laba jirka markaa la hadlayso waa isku gaabinay qofka xikmadda laba jirka agtiisa fariisana inaad kor istaagtay laba jirka kuma qiilinaysa waayeelka cadka ee xooga lahayn markaa kor istaagaysina waa inaad dhahdo adeer abdi awow hadduu aabba ku yahayna alaabta gishitid haddii hooyo ku tahayna sidaasoo kale walaalayaal macaanka xikmadda barta indhaha fura ku tiri kuteynta iyo sheekooyinka murugada leh nagu fura batay ka hara sheekooyinka murugada leh oo maantana iska socoto meelay ka timid ba la garanayn walaalayaal qaaliyaalow qalbi uroonayaalow waxaan idin leeyahay ka carara sheekooyinka murugada leh iyo ku tiri kuteynta caafimaadkaaga ayay dib u dhigaysaa waxaartin cun waxaartin ismari inta iska mari korka dhan mari cun ismari cun wax kaa soo baxayo male haddaa korkaaga murugadaas ku dhaceyso waa naxaysaa haddana laqwiyaad galaysaa waa soo jiidanaysaa balaayadii gurigaaga kugu imaanaysaa waa walaashiin ismahaan khaliif cali oo idin leh kulanti kale iyo channelkeenii ahaa toosinta garaadkii barashada xikmadda iyo barnaamijkeenii ahaa ma rabtaa caafimaad fiican wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu